telefishinka Puntland oo xiganaya xiriiryaha guud ee maamulkaas Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa baahiyay in saddexda xukuumane magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari lagu toogan doono subaxnimada Talaadada ah ee ku beegan 12 bisha soo socotay ee February sanadkan saacadu markay tahay 8 subaxnimo saddexda xukuumane oo kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame ayaa lagu helay in ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii February 2019 magaalada Gaalkacyo lagu geystay gabadhii yareed Caasho Ilyas Aadan raggaasi ayaa maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal waxay dil toogasho ku riday 12 May sanadkii dhamaaday 2019 xukunkaas oo maxkamadda racfaankuna ay ku raacday 30 Juun isla sanadka sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland ayaa 25 Agoosto 2019 si rasmi ah u ayiday dilka lagu riday saddexda xukuumane balse dib u eegis ay ka qaateen ay markale maxkamadda sare laashay 23 Oktoobar 2019 ugu dambeyntii xiriiryaha guud ee maamulka ayaa Sabtidii shalay maxkamadda ku wareejiyay galka fulinta xukunka oo ay ku lifaaqan yihiin warqadii dhaxal koobka iyo codsigii qisaas dalabka qoyska Caasho Ilyas Aadan